أبابلا إيش بحر كبير موفضة يا والله فرماج وخيانة والله كل أنا شافتهم كويس الفرماج لكن وخيانة هيا فرماج وخيانة مانو يا والله بلا كوي بس أنا والله بلا واحد تري على شيء يروس فرماج حلو وفرماجة مين بايا سنة والله واحد تري واقع فرماج إني حلك لا يغال هيا سيستم سلامية والله عدانك حتى وحيد يمدوا واقعنا إني فرماج حلا يغال هذا واقعنا أنت كوينو أنت ذكيان إيه وايد سلامي مركا فرماج وصول فرماج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waan salaamaya asxaabteydii halkan caawa waxaan hambalyo uga dirayaa kal iyo laab ah madaxweynaheena cusub xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne soo dhawow waxaan ku leeyahay hambalyo ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca iyo waliba dadkiisa waxaan ku rajeynayaa guul aan waliba la soo koobi karin ayaan ku rajeynayaa waxaan ku leeyahay hambalyo mudane madaxweyne إلهي هكوغو أسطورة حلقة عن نوقبتي آمين آمين. مدحويني محمد عبد الله فرماجو أيان هوذا فرين أمرين يا سإنتان هوذا فرين أمرين ورتا وحنوان بليين يا مدحوينا عصب حش الشيخ محمود ملكي إله بحياء وحنكورة جيني يا مدحويني إن أفرتا الصنو وإلهي كل قرب قلو حلقاس إن شاء الله نكي سومالي يقول قارسين لهانو إلهي كادقو واي هاي حلي بانا دي عالشيخ محمود دورتي حالي وحان ليهاي وادين اوغاهاي afarta sano ee madaxweynahaas uu xilka hayo labada sano ee dambe mucaarad baa wada noqon doontaan xasan sheekh maxamuud waa xun yahay waad naga dhaadhicin doontaan laakiinse idin kama yeeli doono hadda idin sheegaya xildhibaanow madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay madaxweynaheena dastuurka hadda waa xasan sheekh maxamuud laakiinse qalbigeyga waxaad ka sii ahaan doontaa madaxweyne Soomaaliya farta kaaga soo dhacday wadamada Canada iyo Finland iyo dadkaas hormaray ee maamulka u baahan bay ku qurux badneed inaad ka dhalatid oo aad maamushid geesi garab waayaa tahay madaxweyne qalbiyeeda inaad ku noolaan doontaa madaxweyne farmaajo waxaan ku leeyahay gul iyo gobonimo jaw الدنيا على شوين بعنا قبيل نوحي قاعد قبيل نقطة ما نتاجرين فرماتش ودني مدرس يوم الداس تاجر ساكن بدهاني لكن قف كان على وها قبتي دب قف كان على وها قبتي وسكلا الذي سكلا الذي بسكلا الذي مر لبعد waayahay wax yaraan dul marayaa wararkii ugu dambeeyay doorashada ragga aan isleenahay allay lehe madaxtinimadu ku guuleysan karaan anigu dhankeyga inta ka warhaayo igu maqaalo ah ragga wareegga koowaad laga yaabo inay soo baxaan hadda marka xaqiiqada ka hadalna weeye waa farmaajo xasan sheekh maxamuud siciid deni sheekh shariif xasan cali kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur adu intaasaa afar ka mid ah ay imaan doontaa wareegga koowaad ee doorashada beri lagu balansaya inay ka dhacdo teendhada afsiyooni farmaajo waxa aad u diidan tahay anna aan u diidanahay wax kale ma aha rajadiisu waxay ku xiran tahay lafta gareen oo isaga caawa dayanaya meel uga ron farmaajo marka waxaa laga yaabaa farmaajo wareegga koowaad inuu soo dhaafi waayo doorashada berito waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore lacag lagu qiyaasay ilaa iyo $150 Mareykanka ah $150,000 ayuu caawa farmaajo ku dhiibayaa wax uu ugu magac daray anna ii dhaaro xasan sheekhna ka dhaaro hadda lacagta kaliya laguma dhiibayo aniga ii dhaaro maaha xasanna ka dhaaro oo shariif ka dhaaro oo cabdiraxmaan cabdishakuur ka dhaaro oo xasan cali kheyre ka dhaaro ii dhaaro caawa socota waayahay haddii lafta gareen caawa shiina sida wararka nagu soo gaarayaan uu daldoorsado inuu murashax kale u wareego waxay ka dhigan tahay in farmaajo uu waayi doono codad badan oo uu kalsooni ku qabay marka laga reebo codad yar oo kudlada ninsa ah oo Fahad Yaasiin oo xildhibaanimo loo diiday uu horboodayo sida Yaasiin Faray oo nina ilma adeeran nahay warkayno koob waayahay waa soo koobayaa sidoo kale Sheekh Shariif rajo fiican buu leeyahay xasan cali khayrana rajo wanaagsan buu leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur sidoo kale rajadiisu way kacday markii cabdikariin guuleed uu u tanaasulay habeen hore sidoo kale murashaxiin badan Soomaalidu waxay arkeen ilaa 4 meeyo 10 ka badana isxasishay
oo tanaasushay marka wararkii ugu dambeeyey waa intaas sidoo kale Cadow Cali Gees ayaa isla saameyn weyn caawa la soo baxay oo xildhibaano badan ay gurigiisa joogaan gawaari dagaalna hadda gurigiisay isku gadaamina la leeyahay oo lacago ilaa iyo 40 milyan guriga Cabdo adeerka intaas baa ugu dambeysay ku soco dhankaaga udulqaata Cabdo adeerkii way udulqaata waxa idin sheegayaa horta waxaan tirinaynaa adeeraday horta booso waxaan la dafiri karin baa jira aniga commentigayga dhan dadku farmaajo soo qorayaan farmaajo waa siyaasi shacbiyad leh waa siyaasiyiinta Soomaaliyeed midka ugu shacbiyada badan baa oran karaa anigu waxaan aaminsanahay doorashada tan farmaajo inuu isku guuleysanayn haddii ahaan lahayd doorasho shacabka loo celiyay meesheeda ahaan lahayd doorashada tan 335 xildhibaan baa codaynaya 335 ta codaynayana maslaxado badan ba eegaan farmaajo anigu ma qabo doorashada tan inuu ku guuleysanayo waxaan se qabaa wareegga koowaad inuu soo dhaafayo inuu noqon doono musharaxa wareegga koowaad ugu codadka badan laakiin mushkiladda uu wajahayaa waxay tahay musharaxiinta kale markay haraan iyaga is aadaya oo isu tanaasulaya isaga waxa ku adkaan doonta wareegga koowaad codadka uu helo inuu codad ka badan wareegga dambe uu helo waana wax la soo bartay wax farmaajo lagu tijaabinaya maaha xasan sheekh aan ku soo aragnay sheekh shariif aan ku soo aragnay cabdiweli gaasi dini markay tartamayeen ma ku soo aragnay faroolo iyo markay tartamayeen ninka la yiraahdo baa ku soo aragnay maamul goboleedyada xitaa marka la eego marka u sii gudbi meeno dani rajadiisa aad u fiican tahay sida uu sheegay booska lafta gareen caawa waxa u muuqanaysa inuu musharax kale raadsado dani iyo lafta gareen waa kulmeen kurankoodaasi xasan yaraa kasoo shaqeeyey ninkii lafta gareen uu rabay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku guuldaraystay kulankaasna inta xogta ka hayo kulan miro dhalab u ahaa hadda waxaan samaynaynaa marka waxa waaye dani marka caawa rajadiisa aad u fiican tahay reer puntland intaas ugu bishaareynaya dani 80 xildhibaan oo Jubbaland iyo Puntland waa haystaa xildhibaano kale tana maal adduun baa ninka alla u dhiibay boqorka oo ku iibsan karo xasan cali waliba isku hubo dani xildhibaanihiisu marka waxaan samaynaynaa musharaxiinta ugu cadcad baa waxaan samaynaynaa dadka waa tijaabinaynaa siday u kala ogol yihiin anna musharax baan keenayaa boosna musharax buu keenayaa game baan ku ciyaaraynaa marka wareegga ugu horeeya waxaan 4 musharax oo ugu culus oo aan isdhihi karno madaxweyne waa loo qaadanayaa baan soo keenaynaa 4taas oo ah dani ninkale xasan cali khayre xasan sheekh iyo shariifka هي عبد الرحمن عبد الشكور ku darina final ما عبد الرحمن ايق adiga dhageyso afar baa wareegkooda gudbaya عبد الرحمن kana iga daba wadaxay عبد الرحمن rajadiisu waa khayr Allah siiye raga kale wax la qabaa adu afartaas ku ciyaarayna soo waay afarta dan loo goyso dhimala عبد الرحمن ragiisu wax la qabaa walaalihiisu wax la qabaa dhimala hayo marka hadii aad wada taaliga wareegga koowaad dani baa wataa hadani xasan sheekh waa isku damar jadiida ma kala bedelna marka هذا يقال عدة كيسانس على يقال شريف كوكس وياهي هذا الدنيا واسكو شاكد واسكو دبا سوعنايا marka waxaan sameynaa Sheikh Sharif iyo Daniyan kulanka kuwaad ku ciyaarayna dani hay Daniyan qaadanaysa inkastoo Daniyan anigu dhida taageersanahay aad aan taageersanahay dani caawa rajadii suucidka maraysaa boqorka lafta gareena heshiis bay wada gaareen dalka guushiisu waa dani iyo Sheikh Sharif waa kulankan sida shacabka ay kala taageersan yihiin waayay wax yaraan dul marayaa wararkii ugu dambeeyay doorashada ragga aan isleenahay alle lehe madaxtinimadu ku guuleysan karaan anigu dhankeyga inta ka warhaayo igu maqaalo ah ragga wareegga koowaad laga yaabo inay soo baxaan hadda marka xaqiiqada ka hadalna weeye waa farmaajo xasan sheekh maxamuud سعيد دني شيخ شريف حسن علي غير يا عبد الرحمن عبد الشكور أدو أنت أفر كمد أي إيمان دون تاوريك كواد دورشة بريل لغو بلنسي عيني كان عدو تندد أفسيوني فرماجو وحا آد أدي دنتاي أنا أن أدي دنا وحكا لماها رجدي سوحي كوحيران تا لفتا قرين أو إساقا عاوا ديانا يا
meel uga ron farmaajo marka waxaa laga yaabaa farmaajo wareeg koowaad inuu soo dhaafi waayo doorashada berito waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore lacag lagu qiyaasay ilaa iyo $150 Mareykanka ah $150,000 ayuu caawa farmaajo ku dhiibayaa wax uu ugu magac